wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland oo uu wehelinayo maareeyaha dekedaha Somaliland ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha bilowga dekeda Maydh ee gobolka Sanaaga taasi oo lacagteeda laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF waxaana munaasabada dhagax dhiga oo ka dhacday magaalada Maydh ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceerigaabo oo afhayeenka madaxweynaha Somaliland mas'uuliyiinta sanduuqa SDF madax dhaqameed mas'uuliyiinta degmada Maydh mas'uul ka socday shirkadda dhisaysa dekedaasi iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay madaxa mashruuca dhismaha dekeda Maydh injineer Mursal Ardaale iyo gudoomiye ku-xigeenka sanduuqa SDF Dr. Najax Maxamuud Aadan waa mashruuc gobolka Sanaag Somaliland iyo Maydh ba muddo dheer laga sugayay maanta waxa la hal qabto dhinacyada waa mashruuci waa yimi sida uu ku bilaabmay baan loo kala tagay insha Allah ta'ala muhiimadda mashruucan uu leeyahay kaliya ma aha degmada Maydh iyo magaalada Ceerigaabo iyo Sanaag gobolada bariga Somaliland oo dhan baa la rajaynayaa inuu noloshooda dhaqan-dhaqaale wax badan ka bedelo marka sanduuqa horumarinta Somaliland baa laga maalgeliyay mashruucan waxa loogu talagalay bisha maanta 20ka ee December markuu bilaabmo 1 December 2021 bismillaahi ta'ala halkan waxaynu u fadhii doonaa maalinta in mashruuca xariga laga jaro Maydhna ay noqoto magaalada dekedu waxay geli doontaa 165 mitir badda galaysa waa kow saasaa ku ilaashanaysa kambanigii dhisayna way joogaan qoladii tayada dhowraysayna way joogaan balceedu 6 mitir buu noqon doonaa macnaheedu waxa weeye markiiba waxa la eegayaa inay laba gaadhi isku weydaaran doonaan insha Allah marka ay dhamaato waxaanu eegaynaa in laba doonyood oo midiiba 100 tan ay qaadayso inay ku xiran doonto marka uu mashruucu dhamaado isla mashruuca marka dekeda ama marsada kalluunka waxaan filaynaa haday ugu yaraato inay sida loo dhigo maanta ay u dhignaato 30 sano tani haday u soo noqoto waxa laga yaabaa inay iska konton gaadho mas'uulka guud ee shirkadda dhismaha iyo injineerada ee Kinetic Company qaybteeda Somaliland injineer Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan iyo injineer Saciid Cabdilaahi Saciid oo ka socday shirkadda SWS ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay shirkadda Kinetic waa shirkad dad muwaadiniina iyo dad ajnabi wada leeyihiin waxaan halkan ka ballan qaadaynaa oo shirkad ahaan in aanu ku dhisi doono dekedan tayadii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay iyo hantidii loogu talagalay inaanu gelin doono dekeda la idin dhiso in la hubiyo tayadeeda oo runtii rajada laga qabo insha Allah ta'ala in la fuliyo mas'uuliyadaas aan la saaray inaanu hubino shirkadda runtii dhisaysa la hubino insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in shaqadaas runtii hadii beedmaayo miisaan kale aan insha Allah ta'ala sideeda uga soo bixi doono waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Maydh Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh iyo sidoo kale xogayaha degmadaasi Saciid Cali Doobyareed madax dhaqameed aqoon-yahan iyo marti sharaf kale kuwaas oo soo dhaweeyay dhismaha dekeda Maydh ee maanta halkaasi laga dhagax dhigay waxaan aad u soo dhaweynayaa dhismaha dekeda Maydh wuxuu noqon doonaa halbowlaha dhaqaalaha Somaliland waxaan la tartami doonaa gobolada Boosaaso iyo meelo kale badan waxa loogu talagalay inay dawladdu ka hormariso dhaqaalaha dalka idinkuna waa inaad ka qayb qaadataan inaanu aad idinkaga mahadnaqayno mashruucan dekeda Maydh iyo hirgelintiisa taas waxa naga gaarsiinaysan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland maanta farxad weyn bay noo tahay waxaanu leenahay waa mahadsantihiin waa ku faraxsanahay maanta dekeda maanta naloo bilaabay oo aanu muddo naawuleynay soo eegaynay xagga xukuumadda waxaanu leenahay waa mahadsantihiin waxaan filayaa inaanu diyaar u nahay in aynu hawsha cidii shaqada loo soo idmaday aynu kala shaqaynayno si hagar laana innagoo aan waxba ka doonin waxaynu gelino mooyee soo sidaa maaha waxaan leenahay dekedu ama waxay noqon doontaa laandheere ama waxay noqon doontaa laangaab waana ku qiimeynaynaa saddexdoodaynu ku qiimeynaynaa dekeda hadday dekedi noo dhisaan wanaagsan oo gobolka Sanaag oo dhan anfacda laandheere u daa dekedan Maydh bay ku taallaa laakiin waa deked qaran gobollo dhan baybana ishaa yari wuxuu tahay ilaa buuhoodna laygala soo hadlayay waxa layga sugayaa dekedii ma laynoo furayaa wax ma laga dhoofinayaa oo ma laga soo dejinayaa madaxda iga dambaysaan jawaabta u dhaafid mustaqbalka halkan yaala iyo dekeda halkan laga dhisayo waxa uu ah priority waxa waa nabadgelyada
gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan afhayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac maareeyaha dekedaha Somaliland Saciid Xasan Cabdulaahi iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland kuwaasi oo bulshada kula dardaarmay taariikh way idin tahay nasiibkiinana idinku beegay maanta inaad dekedan iyadoo la dhagax dhigayo oo la dhisayo aga qayb gashaan deked kalluumaysi ayaa iminka noogu deeqdeen waan filayaa dekedii weyneyd inay ku xigi doonto bidnilaalkay jamhuuriyadda dacalkeeda baanu nahay bari oo dhan halkaasaa u dekeda waxaanu codsanaynaa deked ballaaran oo la tirsanta dekedaha caalamka marka lagu yidhaahdo waa tan hadda la qabanayaa lama qiyaasi kara farxadda kaa soo gaadhaysa waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hawsha maanta aynu xafladeenna u joogno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo xubnihiisa golihiisa wasiirada oo inagala jooga wasiirka horumarinta kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha aad baan ugu mahad celinaya cid kasta oo runtii gacan ka geysatay waana waxqabadkii dawladda oo laga bixiyay sanduuqii horumarinta SDF rabaa inagu inaynu soo dhaweyn fiican sameeyno waxa la inaga rabaa inaynu inagu qalbi furo wax walba ku soo dhaweyno gobolka Sanaag wixii hore looga soo sheegay aad iyo aad buu isu bedelay wixii aan maqlaynay iyo waxaan arkayaa waa kala jaad waxaan leeyahay Ilaahay idinku wado Allah idin barakeeyo inaad laf dhabar u tihiin qaranka jamhuuriyadda Somaliland way muuqataa in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha oo koow ka yihiin dekeduhu culayskii u badnaa waxaanu saarnay dekeda weyn ee Berbera maantana waxaa loo soo gudbayaa in la dhiso dekeda labaad waa Maydh runtii waxaan u ballan qaadayaa insha Allah inay noqoto deked shaqaysa hadii Ilaahay yiraahdo waxa lagu soo tafniidayaa dooniyo yimaada halkan si ay shaqada u bilaabmato marka waxa naga go'an inaanu kalluunka horumarino dadkeenana barno asagaana ka dhib yar xoolaha waa xoolo labaad oo Ilaahayna siiyay taas waa asbaabta keentay maanta dekeda halkan aynu fadhino dhismaheeda in la sameeyo waa horumarta kalluunka ee horta ku taxalluqda kalluunkana ku tababaro sida nimcada Ilaahayna siiyay badda taala aynu uga faa'iideysan lahayn annaka xukuumadda waa naga go'antay anoo wasiirka kalluumaysiga ahaa kuma eki kalluunka qura waxaan noo siyaasada inay dekedaas noqoto deked baac mushtari oo doonyaha iyo maraakiibta yaryar baac mushtarigu dhoofaan kana soo degaan hadii alla yiraahdo ayaa noo siyaasada ilaahay idankiina ilaahay wuu inoo hirgelin tanba wuu inoo hirgelin